بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada waa idinka gamaad celinayna ka soo qaybgalkeena barnaamijkan sidaad nooga ajiibteen iyo sidoo kale martida barnaamijkaba barnaamijkeenan caawa waxa uu ku saabsan yahay waa dood waqti kooban aan ku qaadan doono aragtina aan ku wadaagi doono hadii ilaahayd ma waqtigan halkan joogno waxaana ku saabsan tahay dib u dhiska dawlad goboleedka Galmudug ee kadib ka soo kabashada khilaafaadka waxaan eegi doonaa arrimaha hadda taagan ee socda maamul samaynta shirarka dib u heshiisiinta soo dhamaaday iyo aragtidan hadda laga fikiraya ah Galmudug midaysan waxaan eegi doonaa aragtidiina iyo sidoo kale panelka dadka noo fadhiya soo jeedintooda ku aadan sida lagu heli karo Galmudug midaysan waxaan rajaynayaa inaan waqti fiican ku wada qaadan doono hadduu ilaahaydmo waxaan soo dhaweynayaa martida barnaamijka gala qayb galaysa ka bilaabo Ugaas Bashiir Ugaas Ereg kamida saxiixayaasha xildhibaanada iman doona waxa sidoo kale barnaamijka panelka marti noogu ah oo nagala qayb galaya Dr. Mahad Caabi Ciise oo dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Galmudug arrimaha isdhexgalka iyo arrimahaas aad ugu doondoloola sidoo kale waxay nala fadhiso barnaamijka nagala qayb galaysa iyadana xildhibaan Munaxaashi aadna ula socota arrimaha halkan ka socda kana mid ahayd xildhibaanadii baarlamaankan maamulka Galmudug iyo Nuur Maxamuud Jaama isaguna kamid ah dadka arrimaha Galmudug hadda sida dhow ula socda haday ahaan lahayd dib u heshiisiinta iyo arrimaha kale mar labaad soo dhawaada waa idinkaga mahad celinayna aqbalaadiina waxaan rajaynayaa inaad aragtidiina nagu biirin doontaan iyo hadii aad su'aalo ka qabtaan waxa doodu ay tahay ama qaabka ay u dhacayso waan bilaaban doonaa waxaan ku bilaabayaa Ugaas Bashiir Ugaas Ereg ku soo dhawow mar kale doodeena caawa marka xigta nin oday ah tahay arrimahan aad uga warhaya la socda Galmudug waqtiga la soo bilaabayay ilaa hadda ku dhex jira maxay yihiin aragtiyadan laga aaminsan yahay waqtigan hadda la joogo dib u dhiska dawlad goboleedka Galmudug marka laga hadlayo maxay yihiin aragtiyada laga qabo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعن إسلامنا Galmudug cusub sidii ay ku baaqday madaxda dawladda ugu sareysa ama dib u heshiisiintii ay u dhacday waxaan rajaynaynaa Galmudug lugeeda isku taagta ka samata baxda khilaafyadii 4 sano soo ragaadiyay oday fiican xildhibaan fiican madaxweyne fiican iyo wasiir fiican yaan rajaynaynaa insha Allah biidnillaahi kariim haddii alla yiraahdo inay uga samata baxdo cadaalad sunnada nabiga iyo quraanka oo la qaato ayaan rajaynaynaa inay uga samata baxdo waana ka samata bixi doontaa sidii madaxda qaranku ay ballan qaadeen annaguna aan rajaynayno inaan kula shaqeynana aan diyaar ugu nahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waayahay waa kaga mahad celinaa waa kugu soo laaban doonaa isla arrimahaas Dr. Mahad Caabi waa ku soo dhaweynayaa mar kale arrimaha dhalinyarada Galmudug maadaama uu dhaqdhaqaaqdo arrimaha dib u dhiska Galmudug dowrka dhalinyarada waqtigan ay ku leeyihiin muxuu yahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ugu horeen waxaan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala inoo suurta galiyay in halkan isugu nimaano anagoo caafimaad qabna haddana ka doodayna arrimo masiiri ah oo Galmudug sidii lagu samata bixin lahaa marka labaad waxaan mahad celinayaa teamka programkan soo agaasimay STN TV oo maanta caasimadda nala jooga aadaan kaga mahad celinayaa sida quruxda badan idinkana isku hawshan inaa qabatiin sidoo kale waxaan rabaa inaad ugu mahad celiyo agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Galmudug oo programka inuu qabsoomo qayb weyn ka qaatay asagana aad ugu mahad celinayaa iyo ka soo qayb galayaasha intaba intaas kadib Galmudug maanta la rabo in la dhiso 4 sano kadib qaabka ay noqonayso iyo doorka dhalinyaradu ay ka leeyihiin ayaan rabaa inaan wax yar ka taabto marka hore waxaan rabaa inaad dib aan u galo horta Galmudug tii hore la soo dhisay iyo qaabkii lagu soo dhisay iyo si aan u ogaano waxyaalihii naga khaldoomay si mid hadda soo socota aysan nooga khaldoomin waxa la yiraahdaa qofka muuminka laba gud lagama wada qaniino marka si wadadii horeeto oo maanta meesha aan joogno in haddana laga fakaro in Galmudug dib u heshiisiin ay maanta ay gasho dib u dhis kale la yiraahdo la isku yimaado wixii sababay Galmudug waxa la dhisay markii ugu horeysay waqti 2015 ahayd oo markaas dawladda xilligaas jirtay ay isku diyaarinaysay in hal sano kadib ay doorasho ay dhacdo
taas waxay caqabadii u horeysay oo ahayd in galmudug la dhiso xilli noocaas sababtoo ah qofka markaas jooga wuxuu ka fakarayaa teeramka soo socda sida ay ku imaan lahaayeen marka kadib marka galmudug ayadana caqabadii koowaadna waxay ahayd sidoo kaleeto markii ugu horeysay beelo dawladii burburkii dhexe kadib ay wax isku darsadeen horay laga yaabo in uusan ka dhaxeenin isku socod iyo dab kala qaadasho badan oo iska dhaxeen markii ugu horeysay muddo yar intii la isku keenay haddana in maamul loo dhisay ayadana waxay caqabad kale waxay ahayd in waqti badan la siiyo doorkii dhalinyarada marka ay ku lahaayeen galmudugtaas waxay ahaayeen isleeyahay markii la fiiriyo 5% dhalinyaradu aad ugu yareetay markii la fiiriyo xildhibaanadii xilligaas ku jiray laakiin agaasimayaashii la soo magacaabay oo technicalka ahaa runtii waxay u badnaayeen dhalinyaro waxay ahaayeen markii u horeysay loo dhiibay wasaarad meel eber ah joogto dhalinyaradaas maanta waxay keeneen oo galmudugta hore maanta ay ku faani kartaa in wasaaradaha qaar ay leeyihiin xarumo ay ku shaqeeyaan wasaaradaha qaar ay leeyihiin shaqaale rayid oo u shaqeeya oo loo soo tababaray maantana ay ku faanayaan marka maadaama xildhibaanadii iyo wasiiradii door ay ka waayeen doorkii ahayd kaliya ay ciyaarayeen ay ahayd agaasimayaal ay heleen galmudugta maanta noolna u jeedo inay tahay technical teamka arinta daadiyay waxaan isleeyahay galmudugta soo socotay iftiinka lahayd wixii ka soo shaqeeyay dhalinyaro ahaayeen oo maanta soo gaarsiiyay in galmudug ay yeelato xarumo lagu shaqeeyo wasaarada shaqeeya shaqaale rayid ah marka doorka ugu qurxoonaa ka soo qaateen aad marsan waayahay xildhibaan u dhiib xildhibaan mar kale soo dhawow waa kaga mahad celinaynaa imaatinkaaga inaad barnaamijka naga aqbasho xildhibaan baad ahayd baarlamaankii hadda jiray ka mid ahayd hadda waxaa socda abaabul iyo in galmudug dib loo soo dhisaa maxay kula muuqataa inay ku kala duwanaan doonaan baarlamaankii hore iyo midka hadda soo socda aada u mahadsan tahay waan idiin mahad celinayaa STN TV sidoo kale dhalinyarada iyagana waan u mahad celinayaa horta galmudugta hadda maanta ama baarlamaanka loo baahan yahay maadaama isbedel cusub la gelayo waxaa soo xuli doona kulay odayaasha dhaqanka waxaa loo baahan yahay xildhibaan dalka iyo deegaanka intaba samata bixin kara hadda lama qiyaasi karo kuwii hore iyo kuwii dambe inta waxbay raadinayaan oo waxay rabaan qof walba inuu kursigii ku soo noqdo sharci ka celinayana ma jiro waa sax waa loo baahan yahay qofka inuu yimaado ama uu soo noqdo duu jaanis heli karo marka taas waxaa muhiima mar walba xildhibaanada in laga dhigo dad tayo leh waxtar leh saameyn leh waxna qaban kara una naxaya deegaanka iyo dalka intaba aysan noqonin xildhibaano xilli walba inay wax burburiyaan ama wax qasaan waayo galmudug waan ognahay in marxaladaha ay soo martay 4 sano ugu horeysay iyadoo ku jirto waxay gashay 2 mar in ay doorasho ka dhacdo madaxweynihii hore la rido kii dambe naftirkiisa waa isjiiji dambe asagaba ka daba socda laakiin waa uu dadaalayay meel fiican buu wax soo gaarsiiyay marka waxaa loo baahan yahay xildhibaano tayo leh oo maanta deegaanka iyo dalka matali kara in waliba odayaasha maanta hadda uu nagala joogo ugaaska uu saxiixa ah in qaasatan kuwa asaga quseeyo uu ka dhigo dad tayo leh oo saameyn leh oo wax qaban kara waayahay waa mahadsan tahay soo dhawow mar kale waa kaga mahad celinaynaa nuur maxamuud jaamac inaad barnaamijka nagala soo qayb gasho maadaama hadda dhalinyaradii iyo xildhibaanadii iyo odayaashii aan fiirinay dadka kale iyagu ku dhex jira arrimaha galmudug haddii ay ahaan lahaayeen kuwa si gaara ula socda ama doonaya inay ka mid noqdaan arrimaha socda maxaa dooraha u bannaan bismillaah waa mahadsantihiin qof kasta magaca uu ku fadhiyo meeshan ku salaamayaa ugu horeyna SN TV waxaan qabaa dadka korjoogtada ama hadda raba inay galmudug galaan in wax badan uga bannaan yihiin anoo xiganaya xildhibaan muno dadka la rabo tayada leh ee galaya galmudug inay yihiin dadka maanta bannaanka jooga iyo qaybo badan oo ka mid a kuwii hore waxa weye marka dadka hadda imaanaya bannaanka taagan waa dadka loo yeerayo loo gacan haatinayo inay galmudug ka mid noqdaan toosiyaan dhisaan ayna yimaadaan dadkii aqoonta lahaay macnaheedu ma ahan dadkii hore aqoon ma lahayn laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa waxa faraska loogu dhiftaa jadalka soo ordaaya inay ka sii dheereeyaan oo inta ka sii ordo dadka marka loo baahan yahay inay yimaadaan dadkii aqoonta lahaay ee galmudug hogaaminaya shalay
dadka si aqoon badan inay yimaadaan ma dhahayo dadkii hore wax ma qaban khilaafaad ayaa jiray oo ragaadiye malihi waxaan ogahay galmudug inaysan ku dhismin meesha hadda ay joogto ay ku dhisantay meel kale caasimadii asagoo dastuur ku qoraya inay inta tahay oo dhuusamareeb tahay haddana dadaalkii iyadoo khilaafaad iyo wax jiraan horumaraa la sameeyey dhuusamareebaa la yimid caasimadii weeye maanta wax laysla dhistaa la ogol yahay lagu shaqeeyo cid maanta ka soo horjeeda oo Soomaaliyeedna ma jirto dadka banaanka jooga mar kale haddaan ku celiyo waa dadka la rabo inay galmudugtii hore dadka dheereeya ka wanaagsan maaragtay ama xoogaa ka fakaroon inay yimaadaan dadkii horena aqoon ay lahaayeen wayna shaqeeyeen 100%. waayahay waa maadsan tahay waa kugu soo laaban doonaa ogaaska markan ku soo laabanaya ogaas waxaa laga dhawaajiyay hadda in saxiixayaashu door weyn u saaran yahay marka la fiirinayo xildhibaanada imaan doona iyo tayada xagga shaqada si looga gudbo ama looga baaqsado godadkii lagu dhacay markii galmudug dhisneed galmudug 15 Juulaay 4 Juulaay madaxweynaheeda la doortay 2015 maanta waqtiga laga joogo waad garan kartaa waxay ahayd in abaabul fiican dhaco marxalad looga soo gudbo waxa hadda lagu socdahay miyay yihiin wax u qalmi kara ama u qaadmi kara qiyamka galmudug bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin gabdhaha iyo wiilasha iyo tiifiyada iyo adigaba xiriirinta galmudug 15kii odayaasha wax ka soo dhisaan ku jiray cadaadaan ku soo dhisnay waxa horta sideedaba qaldama waxay wax qabtaa qaldama ee haddaan wax la qaban qaladba ma dhaco waxaa la isugu keenay 11 beelood oo 11 kuwa ay col yihiin ilaa 2 beelood mooyee inta kale ayagoo colaha la isugu keenay cadaado 8 beelood bay maraysay waa lagu heshiisiiyey xaal baa lagu kala qaatay galmudug baa lagu dhisay xildhibaanaha lagu dhisay madaxweynaha lagu doortay marka waxaan isleeyahay faa'iiday ahayd taasi iyo isku day aad u fiican bay ahayd marka hadda kaliya waxaa noo hartay wixii hore maadaama khilaaf yari naga galay aan ku sii daro wixii wax ka sii fiican aan ku sii daro odayaashu markasta diyaar waxay u yihiin doorka ay qabtaan door ka sii fiican inay qabtaan odaga waxa la yiraahdaa waxa isagu isu yaqaan maahane waa wax loo yaqaan marka waxaan doonaynaa wax fiican in loo qoodo oo nolo ku farxo ayaan doonaynaa insha Allah biidnillaahi kariim intaadan ka bixin waxaad sheegteen cadaado lagu soo heshiiyey markii galmudug la dhisay haddana waxaan maqalnay ama soo gabagabooshay dib heshiisiin la qabtay marka labada dib heshiisiineed maxay yihiin mar kale la isqoomay haddana waxay yihiin labada dib heshiisiineed kaasi beelo ayaa lagu heshiisiinayay uu ka duunaa beelahaasi beelo isyaqiinay waa ahaayeen laakiin beelo wax u dhisnaayeen ma ahayn laakiin haddeer waxay ahayd beelo inta wax u dhismeen wixii u dhismay aad moodeen xoogaa ay ka halaabeen dib u heshiisiinta haddeer la qabtay waa ku jiray waxay ahayd waxa la isu sheegay qolo walbaba waxa ay qabtay sheegatay markaas waxa la isbarbar dhigay ma haddeeran qabanaa dib u heshiisiinta oo beelaha isugu yeeraa oo wax u kala qaadnaa mase waxaan u sugnaa in dawlad sharci leh haddii lay kuu rooyo ciidan leh maxkamad leh miyaan la sugnaa waxaa la qaatay sidii guddigii baadiyo uu hogaamin jiray hogaamin lahayay iyo xubnihiisii waxaa la qaatay in cid walba wax laga qoro waxa laga qorana lala sugo galmudug tayeele oo dhisan oo maxkamad leh oo ciidan leh in lala sugo saasaa looga qoray waxaana laga diiwaan geliyey wasiirka arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha laga diiwaan geliyey wasiirkuna wuu xusay marka saasay ayaduna ahayd saasay kala bedelaayeen marka farqigaaba u dhaxeeyay umaadsantahay mar labaadan kugu soo laaban doonaa tutor mahad caabi mar kale soo dhawow waa kaga mahad celinaynaa aqbalaadan sidoo kale mar kale waxaan idin xasuusinayaa haddii su'aalo idinku jiraan ama aragti aad ku biirin lahaydeen waqtigiina idin siin doonaa oo nagala qayb geli doontaan haddii ilaahay idmo tutor mahad hadday hadalkaaga waxa ku jirta in dhalinyaradu door fiican ku lahaayeen galmudugtii la soo sameeyey oo haddii ahaan lahayd dadka shaqada qabanaya ama waxyaabo badan soo kordhinayay hadda isriix badan baa jira sida maamuladii aan ku aragnay doorashooyinkooda ay soo qabsoomeen ba dhalinyaro badan ka qayb qaadato oo ku soo biirtay siyaasadda isbedel fiicanna muujiyay dhalinyarada abaabul noocaas ma ku jira hadda aad ma santahay mar kale waxaan is leeyahay maanta galmudugta cusub ee dhismaysa waxa ugu badan oo tafaxiidka ugu jira oo orday waxa waa dhalinyaro aqoon-yahano ah
aqoon kaliya maahan haddana deegaan jacayl iyo dad jacayl uu ku jiro marka waxaan isleeyahay haddii odayaasha sayaxayaasha ah ay garab ka helaan waxaan isleeyahay maanta dadka u badan ee maanta raba inay galmudug wax ka dhisaan oo ay wax ka noqdaan si meesha ay joogto intay uga qaadaan meel kale ay u geeyaan ka sareysa waa dhalinyaro sababtoo ah dhalinyarada maanta energy ku jira oo reer galmudug ah waxay arkaan deegaanada kaleeto oo dariskooda ah horumar badan oo ay gaareen marka waxa ku jira maseer badan oo ah in galmudug maanta ay u dubqaadaan oo wax badan ay gaarsiiyaan marka haddii aan laga faa'iideysan waxa isleeyahay taas ayaa waxay tahay nasiib darro oo dhalinyaro badan oo maanta diyaar ah runtii dhalinyaro badan intii joogeen waxay ka soo qayb qaateen in nabadgelyo badan ay ka dhacdo deegaanada isdhexgal badan ay sameeyaan dhalinyarada waxaan isleeyahay galmudug waxa kaliya u fiiyo maanta waa dhalinyarada sababtoo ah ma lahan xuduud ma lahan kala qoqob kale waxay tegi karaan meel walba waxay u safri karaan meel walba deegaanada ay joogaan dhalinyarada ay isku casuumaan waxaan isleeyahay maanta deegaan siyaasiyiinta iyo odayaasha deegaanada qaar ee galmudug waxa laga yaabaa inay tageen laakiin in dhalinyaraha ama tiim dhalinyaraha waxa laga yaabaa galmudug oo dhammaan deegaanada galmudug tagay marka haddii aysan gacanna ka helin maanta sayaxayaasha iyo dadka siyaasadda sheerka ku leh oo inta badan goynahay waxaan isleeyahay dee galmudug sidii hore meel ka fiican ma gaarayso maadaama ay dhalinyaradu sidaad sheegtay deegaano badan tageen oo isu gudbi karaan dib u heshiisiinna ay ahayd waxaan hadda ka sheekeynayno maqlaynay dhalinyaradu maxay door muuqda ugu yeelan waayeen in dadka la isu keeno isdhexgalkii laga shaqeeyo dhalinyaradu si isxilqaam ah ay arrintaas u sameynayeen shirkii dib u heshiisiinta haddii aad aragtaan waxaan malaynayaa wixii la isku keeno odayaal ay ahaayeen oo ergooyinkii ahaa howlka shirka qof koofi aan wadan aad u yaraaya isleeyahay oo dhalinyaraha marka taas waxay tusinaysay in dhalinyarada wax caqabada aysan ka jirin dhexdooda laakiin mar walba in la isku socdo oo deegaanada ifaalo fiican laga sameeyo dhalinyarada horbuud ay u hayeen tusaale ciidii soonqaad deegaanada galmudug oo dhan waxaa ka dhacay bigjar qurxoon ka soo baxay ama sawir qurxoon oo dalxiis ah wixii muujinaya waxay ahayn dhalinyaro caasimadda haddii ahaan dhalinyaro badanaa timid gurceel waa la tegey cadaado dhalinyaro badanaa joogtay cabudwaaq tiim badan oo anigu aan ka mid ah hobyo ayaa tagnaa anakoo dhalinyaro galmudug ah marka intaasoo dhan dee maysi jirin wax oo xuduud ah oo dhalinyarada u dhexeeyey marka in lagu darsado oo shirka dib u heshiisiinta loo dhiibo oo ayagu ay jaargareeyaan ahayd waayahay waxaan filayaa fariintaada gudubtay xildhibaan muno mar kale soo dhawow siyaasadda Soomaaliya markii laga sheekeynayo waxa la yiraahdaa qoonda jirto dumarka u gaara arrimaha dumarka la ixtiraamo dumarka in siyaasadda laga qayb galiya laakiin waxaan la isweydiinay waxay tahay dumarku iyagu ma aqbalsan yihiin siyaasadda ka qayb galaan waa mahadsan tahay dumarku in hadda ma aqbalsan yihiin la dhahaa ma aha waa weyba muuqataaba inay siyaasaddu aqbalsan yihiin ee orod ku jiraan laakiin mar walba waxa la isku dayaa horta in la reebo carra laga yahay anu ma garanayo waxa looga ordayo wax badan oo wax qabtana ragga iyo dumarka markii loo fiiriyo dumarka aad iyo aad ugu dhaqdhaqaaqa wayna ka degan yihiin ragga waayo hadii maanta waxa aaminsanahay boqolkiiba 30 horta aad u raadiyaan haweenka laakiin boqolkiiba 30 ka badan ay leeyihiin ma aha inay isku koobaanba intaas anu waxa aaminsanahay ninka ragga meeshu ka bixi karo inay gabadhuna ka bixi karto teeda kaleeto wax qoonda la yiraahdana ama gabadhu inay tartanto hore u socoto aysan nin kursiga uga baqin si wax ku soo heli karto ee ku soo hesho laakiin anu dadkii 16 ka soo horjeedaan kamid ahay in la yiraahdo kursigan gabar ha loo xiro midda uga soo horjeedana wax kale ma ahayn gabadhan kursigan markii loo xiro mar walba waxay sugaysaa in meel loo xiro mana fiicno qofku inuu hore u socon karo inuu tartan gali karo inuu ninka wax ka soo dhacsan karo inay gabadhu muujisay fahanto taasa muhiim waayahay laakiin hadii isriixriix uu jiro oo sidaa sheegtay laga cararayo dumarka miyaana ahayn qoonda gooniyo loo xiro leeyahay booska lama taaban karo qoondadii naftirkeeda waxay ku tahay aqabad qoonda markii la yiraahdaan laga dhaweynayba dhab ma noqonayso laakiin markii gabadhan la yiraahdo shantaan nin or la tartan waxa laga yaabaa inay shanta ka guuleysato laakiin qoondada waxa laga yaabaa in ayadii qoondadii sugaysa oo halka kursi ilaalinaysa hoosteeda laga bixiyo kursigii oo la qaato waayahay waa ku soo laaban doona nuur maxamuud jaamac haday waxaad ka dhawaajisay in dadka banaanka ka jooga galmudug ee aan kamid ahayn dadkii xilalka ka hayay galmudugtii 4 sano ee la soo dhaafay shaqeynaysay maanta in door fiican u banaan yahay iyagana loo baahan yahay siyaasadda Soomaaliya waxyaabaha ka baran waxa kamid ah in wajiye is yaqaana ay soo ku soo laabtaan siyaasadda badankood marka miyaanay taas ka muhiimsanayn markii qof cusub uu imaan lahaa in dadkii hore joogo soo shaqeynaya caqabadaha la kulmay loo daayo oo la yiraahdo bal mar kale wax ka keena
waa mahadsan tahay waa muhiim dadkaas in loo daayo balse dadkii waxay ku celceliyeen galmudug cusubaa la rabaa waxaa la rabaa dad aqoon-yahanaha la rabaa waxaa la rabaa waxyaabo badan baa la sheegay marka dadka bannaanka joogaana waxay u jeedaan inta badan qofka shaqaynaya wuxuusan ujeedin ujeedaan dadka bannaanka jooga waxbay kor ka arkayaan dadkan gudahoo shaqaynayaan way mashquulsan yihiin fursadna uma hayaan intay shaqaynayaan inay toosiyaan maanta waxay diyaar u yihiin maadaama u dhammaaday wakhtigoodii inay yidhaahdaan 4 sano waxbaan arkaynay wixii aan aruurinay baan rabnaa inaan sheegno waxaan rabnaa inaan ku shaqayno dadka gudaha jooga way habboon tahay inay shaqeeyaan laakiin waxaad moodaa haddee waxaa la yidhi dad waxaa loo baahan yahay galmudug cusub ayaguna waa dadkii hore maadaama galmudug cusub loo baahan yahay haddii galmudug madaxweynaheedii iyo baarlamaankeedii iyo gudoomiyihii baarlamaanka la soo celiyo beesha caalamka waxay leedahay dadkii horaa jooga galmudug cusub ma jirto tanna waxaan leenahay dadkii hayay hadday bachelor ahaayeen hadday masters ahaayeen in maanta dad PhD la keeno in maaragtay dad la keeno khibrad leh oo soo shaqeeyay in dad la keeno maaragtay qaybihii horena wax looga kabo oo laga wada tegin waan qabaa marka ani fakarkayga waxaan qabaa in dadka bannaanka jooga in badan xagga aqoontana duwan yihiin aragtiyada siyaasadda maadaama ay bannaanka taagaanayeen wax badan ay aruursheen waayahay aad baad u mahadsan tahay ogaas bashiir ayaan markaan ku soo laabanaya ogaas maadaama saxiixayaasha aad ku jirto dadku aad bay idiin sugayaan anoo su-aasheeda kale dib u dhigan doona waxay fiirinayaan waxa aad soo saari doontaan xildhibaanaad kolley wakiilo ka noqon doontaan soo saxiixi doontaan maxaa 1 iyo 2 iyo 3 idin ah oo aad ku qiimeyn doontaan xildhibaanada aad siin doontaan inay xildhibaano ka noqdaan baarlamaanka galmudug bismillah horta marka ugu horeysa ninka saxiixaha ay awood uu xildhibaan ku soo saaro asagu male qabiil buu saxiixa u yahay ama mas'uul u yahay qabiilkaas waxay leeyihiin nabadoono waxay leeyihiin samadoono waxay leeyihiin odayaashaas u gudbiyaa oo wuxuu yiraahdaa intaasoo xildhibaan baad leedihiin ka soo tashada markay ku soo heshiiyaan oo soo saxiixaan ayuu gudbiyaa asagu oo odagu mid asagu tasarruf qabiilka xooga ama amar ku leh maaha marka wixina loo soo gudbiyo annagoo talo ku leh dardaaran ku leh haddii ilaahay kuu roon yahay wax aad iyo aad dalka iyo dadka iyo diinta u anfaca soo saara oo noo soo gudbiya annaguna aan sii gudbinno intaasoo odagu door ku leeyahay door qasaba male odagu waayahay meeshan u socda meeshaas maadaama door tala iyo dardaarana aad ku leedihiin waxa muuqda haddii aanan idinla muuqan wixii saxda ahaa miyaanan bedeli karin maya qabiilku waxa saxda horta sideedaba sax haddii la yiraahdo waxa saxahay waa kalaamka ilaahay weeye waxa saxahay marka waxaan jecelahay annagu inaan kalaamka ilaahayba ku dhisno wax kasta oo dhacaya xaq rabbi ka dhacaan laakiin inaan kalaamka ilaahay ku dhisno oo rabbi ka cabsi aan ku dhisno oo taqwo aan ku dhisno oo ilaah aqoon aan ku dhisno oo wax garanimo aan ku dhisnaan jecelahay annagu waayahay su-aashan ku weydiin doona marka waxay tahay hadda waxaan ka sheekeynay caqabadaha jira iyo shirarkii dib u heshiisiinta wax meeshan loo socdaa waxay tahay oo hadalka ugu badan ee lagu celceliya maanta galmudug midaysan oday baa tahay arrimaha ka warhaya ilaa galmudugtii hore la soo dhisay galmudug midaysan sidee lagu heli karaa bay kula tahay galmudug midaysan waxa lagu heli karaa horta sideedaba galmudug hadda haddii la fiiriyo xagga amniga iyo xagga haddii horumarka iyo xagga siyaasadda intaba waxaad moodaa inay ku liidato marka galmudug midaysan waxa lagu heli karaa shareecada islaamka oo la qaato oo si sax loo qaato iyo sunnada nebiga dad wanaagsan loo soo xulo ilaahayna loo baryo ilaahayna la tala saarto intaasoo ku noqon kartaa waayahay doctor mahad caabid arrimaha dhallinyaradana waa u dhaqdhaqaaqada laakiin arrimaha siyaasadana waad ka warhaysaa galmudug hadda galmudug midaysanaan daba socdaaye arrimaha jiro waad ka warhaysaa sida involvedka loogu yahay ama isha loogu hayo dadaalada kale kor ka imaanaya tallaabooyinka hadda kuu muuqday aad arkayso markaad falaqayn ku samayso ama maskaxdaada la kaashato ma yihiin kuwa muujinaya in lagu heli karo galmudug midaysan aad u mahadsan tahay galmudug midaysan intaan helin horta ma soo helnay galmudug midaysan horta ma soo aragnay haddii aan soo aragnay galmudug midaysan oo waxa ay noo soo qabatay aan aragno oo wax ka sheegno waxaan ogaan karnaa galmudug midaysan faa'iido ay noo leedahay iyo sida lagu heli karo galmudug markii la dhisay
cadaado lagu dhisay caasimada siyaasad ahaan oo ku maqnaato laakiin xogaa dadkii waxbaa la dhisay markii la dhisay kadib waxaa la sameeyay galmudug marka siyaasadeedu xogaa way fadhisay way xasilooneed wasiiraa la sameeyay midnimadaas wixii ay keento waxaa ka mid ah markii ugu horreysay waxaa la sameeyay ciidankii nabad sugidda ee galmudug markii la sameeyay ciidankaas nabad sugidda waxay sameeyeen kontaroolo waxaa jira iska yaala si sharci darra u yaalay dhammaan waa la wada qaaday kontarooladaas waxaa la mideeyay canshuurtii galmudug oo markaas kontaroolada kasoo xaroonaysay boonada laga jarto godin laba waxa lagu tagi jiray kaalkacyo boonada kaalkacyo laga soo jartana waxa lagu imaan jiray godin laba lagu imaan jiray taas waxay ahayd waxyaalihii midnimada ay noo keentay sidoo kale mashaariic yar oo horumarneed oo ay ka mid ahaayeen golihii deegaanada in la dhisay magaalooyinka qaar si rabayaan loo dhisay oo la soo diiwaan gelin waa la dhisay iyadana markii galmudug siyaasadeedu ay mideysnayd deeqaha waxbarasho la heli jiray deeqaha la heli jiray dhanka horumarka deegaanadu way usinaayeen waa la gaarsiin jiray waxaa dhacday intii galmudug khilaaf uusan ka jirin in abaarihii ay dhaceen 2016 deeqa badanaa la helay simana loo qaybinayo oo dadka looga jawaabayo abaarahaas galmudug ay u kaceen khilaafkii kadib waxaasoo dhan way isbedeleen oo wax walba meeshooda ay ku soo laabteen haddii maanta amartid ama 2 bilood ka hor ama 3 bilood ka hor laamigaas dheer amartid intaasoo jidgooyo oo sharci darra ayaa yaala maanta arkaysaa marka tilaabooyinka hadda muuqda oo galmudug lagu dhisaayo waxaan isleenahay way soo celinayaan rajada markii loo fiiriyo dadaalkii iyo juhdigii ay ku bixisay dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha halkan uu joogo muddo 2 bilood ku dhow wax walba oo markaas siyaasadda galmudug ay u muuqatay bilo ka hor way soo dhamaatay galmudug cusub in la dhisay ayaa soo muuqatay dadkii deegaanka iyo dhaqankii halkan ayaa la isku keenay shirki ayaa dhacay wali ifaali ayaa suuynaa in doorashadii ay dhacdo dhalinyaro badan aqoon-yahan badan dad badan oo daneynaya siyaasadda galmudug way yimaadeen laakiin waxaa isleenahay markii khilaafkii wixii uu keenay oo sumcaddii ahayd in dowlad goboleedka galmudug hoos u dhacday maanta kor ayay u socotaa isleenahay marka tallaabooyinka waxay kula muuqdaan kuwa lagu gaari karo waa mahadsan tahay muna boos yaa naloo xirinaa tiri aan tartanno dadka iska dhicinno haweenku markay siyaasadda ku jiraan ama raadinayaan maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee la kulmaan horta caqabado badan ee haweenka la kulmaan caqabadahaasna wax la soo koobi karo horta ma aha sida hadda muuqata waxay la kulmayaan in gabadhu markay kursi raadinayso kursigeeduba uu 10 nin ama 5 nin ay ku dhagantahay muhiimaduna ma siinayaan dadka mas'uuliyiinta ah inay gabadha tixgeliyaan ama ay soo hormariyaan waxa leeyahay orodoo halkaas aad odagaaga iyo dadka aad odaga day u timaadana wuxuu leeyahay bal u kaadi ragaana bal la fiirinaya sanadkaani dib isku dhig marka waxa muhiim horta odayaashu dhaqanka oo keenaya xildhibaanada inay markay soo qoraan 2 ninba ay dhahaan haye qabiilku horta meeqa kursi uu leeyahay qabiilka matalan 6 leh oo kaleeto hadii 3 rag qaad 3 kale inay dumar siiyaan si siman dawladdan waxaa loo baahan yahay inay xooga saarto war maxay soo gudbiyeen qabiilkan 6 kursi ay leeyihiin 6duba waa rag hadii la yiraahdo dawladdu ma inay inta gudbiso ee aqbasho laakiin waa inay tiraahdaa waa inaad gabdhaha aad soo buuxisaan waa in la siiyaa tiradooda xaqa ah laakiin gabdhuhu way dadaalayaan boqolkiiba way dadaalayaan marka odayaasha naftirkooda waxaa laga rabaa inay gabdhaha u naxariistaan oo ay yiraahdaan bal kuraastooda ha lagu soo diro liiska nuur soo dhow mar kale haday waxaad ka dhawaajisay in dadka banaanka joogaa ay ka arki og yihiin arrimaha socda dadka shaqada ku jira hadhow markii shaqada la galo sida hadda dadka shaqeynaya miyaanay noqon karin kuwii banaanka joogay qaladaadka arkaya miyaanay wixii u jeedi weyn karin bismillaah marka koowaad dadka banaanka jooga hadda waxay arkaan ay qabanayaan markii ay meesha galaan waxa laga yaabaa inay u jeedi waayaan wax cusub ay noqonayaan dadka kale ee banaanka jooga ayaga bari bedeli doona ayagana u jeeda oo arkaya marka muhiim ah markasta shaqadu mar walba way taagan tahay waana hadba grade aadaysa hadba kor u kacaysa hadba waxbay noqonaysaa saa darteed wixii markaas ayaga ka hoos noqdo waxa fiirinaya oo ay arki waayaan waxa arkaya dadka kale ee dheergaradka ah ee banaanka taagan ee leh wallahi habal hadii aad bedeli lahayd shaqadaas ayaad qabsaas aad u bedeli lahayd haduu booskiisa amaanta joogi lahayd ma dhamaanayso marka in la aruuriyo waxyaabaha maaragtay ee qaldamaya maadaama aan xisbi lahayn dadkii wax u sheego yiraahdo
maamulkaa jira waxaasuu ku qaldan yahay waxaasna wuu ku saxan yahay saas darteed waa inuu taa hagaajiyaa adduunyada xisbiyaa laga isticmaalaa maadaama aan xisbigaas active-ka lahayn oo maamuladu ay maqlaayaan marka waa inaan dadka ineergaradka ah oo wax arkayaan u dayno inay aruuriyaan inta laga helayo xisbiyo sharciya ee dowladuhu qaataan taladooda sax iyo sixitaankooda waayahay maadaama hadda bannaanka aad ka joogtaan ishan aad ku haysaan aad isleedihiin alla ilahay amaad ka mid noqotaan arrimaha socda sideed u aragtaan arrimahan hadda galmudug ka jira waxaan u arkaa horta galmudug laba dhinac aan arkaa aniga dhinaca koowaad galmudug horumar samaysay gudubtay gaartay meelo aysan gaarin waqtiyadii dhexe caasimadeedii joogta dadku ay ku midayseen inay wax wada dhistaan hadda urur ama qof ama gobol diidan oo dhahaya galmudug ma jirto in la wada dhiso dhahaya ma jiro iyo bilow galmudug meesha laga soo bilaabay 2015kii waxaa laga soo bilaabo odayaasha soo magac qofka ha keenay haddii marka galmudug sida ay u shaqaysay xilligeedii ku gaarta waxaan rajo ka qabnay in galmudug baarlamaankeeda kusoo xolata si ka bedelan sidii hore waagi hore lagu soo qolay odagu soo qolayay ama waxyaabaha la yidhaahdo maaragtay qolyahan doorashooyinka maaragtay dowladaha hoose inay wax soo doortaan ama si kale sidii federaalka oo kale 51kii wax oo la mida hoose processkaas lagu soo doorto marka galmudug waxay maaragtay labadaas nooc ayay samaysay oo dhinacan horumarka ka ah dhinacna bilowga ka ah saa darteed waxaan qabaa maaragtay maadaama hadda meesheedii hore ay taagan tahay xagga doorashada waxay ku xiran tahay odayga inuu arko dadka galmudug hogaamin kara ma aha dadka bannaanka joogaa inay maanta aragtidooda ay shaqaynayso waayahay aad baad umahadsan tahay ogaaska aan siin doonaa markan ogaas erayga odayga aad buu loogu soo celceliyey odayna adaa nagala jooga maanta caawa marka adigaa noo qaadi doona xaggaagan la soo aadi doonaa eraygaas haddaa maqasho macnaheedu waxaa waaye adaa lagu dan leeyahay marka maadaama arrimahaas hadda saxiixii iyo xildhibaanadii iyo aad ku jirtaan ood ka shaqaynaysaan ma waxaa jira caqabada aad la kulmaysaan ama cadaadisyo qasbaya in waxa dadku u jeedaan waxaan ahayn la hirgeliyo bismillah ilaa hadda anagu ma aragno waxaanu wanaagahay ma aragno wax qasaba ama tahdiida ma aragno si fiican ayay noogu socotaa si anagu aan isleenahay odaga haddii lagu soo celiyana waxaa la yidhaha odaga waa laaqaynta cas oo kale weeye marka ninka odaga waxaa la yidhaahdaa candhuuf in lagu tufo iyo in la dhunkado waa isaga mid maxaa yeele mas-uuliyad baa saaran intaanu waa adeer iyo arti iyo walaal u yahay marka oday xanaaqa ama xoogaa isgala oday maaha saas darteed ayaan odaynimadana ogol lahay waxu nooga jeedo ilaa hadda waxaan saadaalinayaa galmudug korta oo meel fiican gaadha oo ilaahay maaragtay wanaajiyo annaguna aan ilaahay ugu xamdino ayaan rajaynaya insha allah midjirka waayahay waa wada rajaynaynaa dhammaanteen inaan galmudug noocaasa wada helno asxaabtaan markaan sii rabaa dowrkooda haddii aragti aad nagu biirinaysaan ama dadka meesha fadhiya aad leedihiin arrimahaas iyo arrimahaasaan ku talinaynaa ama aad su-aal qabtaan aad weydiinaysaan soo dhowaada أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي هو إبراهيم محمد نور وحانا ومركو لنا سؤال ويديو واسكا سؤال شيء ده وحي تهاي وقاس ما دام آتيهين وضياشي دقنكا ديانكا نشاقين قلمدك وما انت نقول تاقان إني صوحوان حلوان نضي كأضيال أهان طبعا سلاة شاكتي ديوشيسين ورائية مثل بعض ودعضي وتي دمبل لوسو دبدبيو دوسمريب طبعا كومي توم بيرود او حلو سمي ديوشيسين وحد مودا مارتي سنادي دمبل ku soo direen beel cusub oo 12 ku noqotay waa beesha la yiraahdo Tigriyo Mirfle maadaama ay degaan gobolada galmudug oo dhan ka oday ahaan ma isweydiiseen beelweynta Tigriyo Mirfle maadaama reer galmudug sanad maartay siyaasadeed ay ku leeyihiin koonfur galbeed
iyaguna in aad waxaad ka siisaan saami qaybsiga ka socda galmudug xildhibaano hadday noqon lahayd hadday wasiiro noqon lahayd hadday agaasimayaal noqon lahayd intuba waxaan weydiinayaa ugaaska su-aasha kale waxaan u wadaa maaragtay dictoorka isaguna in badan wuxuu ka dhawaajiyay doorka dhalinyarada ma isku daydeen dhalinyarada reer koonfur galbeed ee deegaan ku sugan in aad raadisaan sida agaasimayaasha deegaan dhalinyarada kale aad ugu raadiseen iyaguna in aad u raadiso aad u raadiseen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو أحمد عبدي وكترسن ضميرة الديان في قلمدو. runtii aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo markii ugu horeysay dood caynkan ah oo looga hadlayo arrimaha galmudug dhismaheeda cusub gaar ahaan waxaa ka socdaa dhalinyarada degmada cadaado waxaan rabaa marka in aan laba su-aal weydiiyo su-aasha kuwaad ugaaska su-aasha labaad waxaan rabaa xildhibaan muno inaan weydiiyo ugaaska waxaan leeyahay ugaas waxaa jira hadda intaan dhusun reer joogay maalmahan ku dhawaad 10 maalmood hadda aan hawada u joogay waxyaabaha hadda aan aad ku maqalno waxaa ka mid ah dadka xildhibaanada raadinaya laba nooc isugu jiraan dad oo iska waaya arag ah oo aan lahayn khibrad siyaasadeed iyo mid aqooneed haddii tahay maadi iyo maxay tahay diini intaba marka oo aadna la leeyahay waa ugu dhowyiin inay xildhibaan noqdaan sababtuna ay tahay waxaa wata musharaxiinta qaarkood oo la saadaalinayo arrintaas ugaasyada iyo dadka soo xulaaya galmudug maadaama galmudug la ogyahay marka hore inay eersatay xildhibaano lacag raadinaya suuragal ma tahay inay ka badbaadiyaan galmudug dadka caynkaas ah oo raba keliya inay shilimaadka ay ka qaadanayaan musharaxiinta ay helaan kadibna ay hore uga socdaan taas suuragal ma tahay inay ka badbaadiyaan dadka xildhibaanada soo xulaaya galmudug dad noocaas ay yimaadaan su-aasha labaad waxaan weydiinayaa xildhibaan mulug oo ka mid ah xildhibaanada hadda ugu dambeeyey ee galmudug inkastoo ay gadaal kaga soo biirtay haddana waxaan rabaa su-aasheeda waxay ku salaysan tahay gabdhuhu inta badan waxay raadiyaan inay matalaad siyaasadeed helaan waxaa lagu eedeeyaa dumarka in marka ay kursiga yimaadaan ay xoogaa si kale ismoodaan oo ay xataa iloobaan gabarnimadu iska daa inay mas-uuliyaddii loo egmada ay la yimaadaan marka ma dhihi kara taas waxay taana ku tahay in gabdhuhu ay mas-uuliyad qaadi karaan maadaama marka hadda waxaan aragnaa kuwa hadda federal level galay ma muuqdo rol ay leeyihiin kaalin ay leeyihiin ma muuqato keliya waxay ku mashquuleen inay banaanbaxay ka qayb galaan in yacni ay si iskooda social media ugu mashquulsan yihiin ayagoo magacooda ka faa'iidaysanayo ay lumiyeen wixii loo soo matalaadii siyaasadeed lahaayeen maxay kaga duwanaan doonaan gabdhaha galmudug xildhibaanada kasoo geli doona adiga ka mid bismillahi raxmaani raxiim magacayga waa xasan salwo ugaaska su-aalaha ku bateen waxaan rajeynaa in maaragtay marka hal su-aalan wataa ugaaskeena ku socotaa dabcan haddii sida aad rabtaan wax noqon waayaan sida aan xanta ku maqlayno in qoorqabad wax laisku siinayn ayaantan aad magaalada ku jirta maxaa ku qancinaysaan dadka aad matashaan sida aad rabtaan haddii aad wax u heli weysaan ama ay noqon weyso inaad sida aad rabtaan ama dadkiinu rabo in wax loo soo xili waayo maxaa ku qancinaysaan dadkiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجاي أحمد عبد الله معلم قاعدين أكون على رحي. وحرجينا إن السؤال شكوى عن واسع كوسع الضغط. إن واسيدة يضيعش نقل كأن مثلاً أو سياسة نقول مثلاً أو حل وانا نوصل خلاص وأيجي نرجع على نقدان مدينة. لكن مدة سياسة وكرة. إن دور كيلو واسيدة يضيعش نقل كأن نقدان أو سياسيين كنا نقول له هم هذول سياسيين تبع المسلمين. لكن أنا أقول شغلة كواعي من سنة. بانغلاديش يقولوا كتبان دور شق حالها كان على سنة كلا صداع. وحنا نسويه وها وضعنا قمتك. مركب وضعنا قمتك إن السياسيين تدبر دونين إن أيجا ولا مشي دونين ولا سنة اسمه نقول بكرة. وضعنا شيء نوصل فين دوران في العالم لنا. أنا وضعنا شغل كرسانة. سؤال سؤال بعد ما كنا نسي فرق وده ويدي دورنا وهاي تهاي. خلنا قط الدور كهويك. أما كان dhalinyarada ama door kasta baarlamaanka lagu yeelo waxay ka imaataa waxa kale loo ogol yahay dhalinyarada ahaan ama haween ama qologoodii wax loo ogol yahay siyaasiyiinta wax ma ogol laakiin ama dhalinyarada ama haween ha ahaatee ma jirta wax abaabul ah oo dhalinyarada ayaga ay wadaan ama inta sameeyaan oo bulshada ay ku sameeyaan oo siyaasiyiinta ay ku difacayaan odayaasha inta tagaan ay leeyihiin warin maadeeryaalo bas
heli karnaa waxaan rabaa isla tusaale kale aan usoo qaato maamul goboleedyo fara badan oo ay koonfur galbeed iyo puntland ay u horeeyaan oo dhallinyaradu ay ka yihiin baarlamaanka inta ugu badan marka reer galmudug haddaan ahaa dhallinyaradiisa oo rag iyo dumarba isugu jiro ma awoodnaa inaan boosaska baarlamaanka aqoonleena aan dhacsano mahadsantahay waa mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinaynaa su-aalo fiican baad nagu soo kordhiseen iyo aragti fiican kolley su-aalaba u yaala su-aalaha ugu badan ugaaskay ku socdeen isagaan aan ku horumarin doonaa ninkii ugu horreeyay su-aasha ku weydiinayay bismillah wuxuu yidhi maxaa digidii milifro ugu talagashay sa waa xusiisanahay kushadii tobankii markii la dhisaayay galmudug 11 qabiilo la isu keenay ayaan markii mid boqolaa timid waxay yidhahdeen haddaan nimid maxaa la yidhahdaa xasbulaa la yidhahdaa gowga dhismale ay yidhaahdeen xaggee degtaan galmudug baa degnaa ay yidhaahdeen hal xildhibaan in la siiyaan u malaynayaa cabaar haddii la joogo qolo kalaa timid maxay yidhahdeen wadalaana la yidhaahdaa ayagana hal xildhibaan baa la siiyey markaas hadal waa la waayay digli midkaa la yidhahdaa wax yidhahda oo yimaado waa la waayay tanna haddayba cusub tahay marka haddaan leena geegaan kooyin hadda miiska korkiisa fuul haddaan koynayne sidii dadkii hore loo cusmeeyo lagu cusmaynayaa haddaan dadka ku samaynaa waayahay su-aashii kale xildhibaano cadaadiska musharaxiinta idinkaga imaana xildhibaanaba la wataa baa la leeyahay waa isku su-aalay ahayaa marka annaga wax cadaadisa oo hadda nooga imanaya mas-uuliyiinta ma jiraan ninkuna wuxuu rabaa ogaaska ama odaga ahi bulshada iyo siyaasiga iyo haddii la kuunuu yahay dadka dhallinyarada intaba nolol ay ka rabaan wuxuu yidhi ninkii inta nin la yaabo wuxuu yidhi xamar joogiday kaa rabtaa u yidhi ogaaska ruuxiisu dadka dhexdiisa joognu ka rabaa inaan dadka joogno la joognaa rabnaa oo sharaf ku yeelno sidaa darteed ma doonayna anagu inaan eexanno haddii ilaahayna nabadgeli ilaahayna waa kala saarnayna su-aal kaloo ninkaa ku weydiiyey baa jirta iyada u ekay handadaadda iyadana waa isku su-aalay kulligood ahaayeen weli ma hayno waxna handaday oo shaksiyan aniga hadda dad kale wakiil kama yihi laakiin wax intay handaday yidhaahda dadkaasoo saas noo soo qor weli ma hayno su-aasha ninkan waxay u dhacaysay haddii waxaasu ay dhacaan oo sidii aad rabteen heli weysaan maxaa ku qancinaysaan dadkiina waxaan dadka ku qancinaynaa sida xaqiiqada oo dadku waxa ay leeyihiin ayaan ku qancinaynaaye waxna la soo qoro siyaasada fare ku qancimayno marka nin dhallinyaro ah oo isaguna halkaas su-aal kaa weydiiyey wuxuu yidhi annagu waa ku kalsoonna odayaasha dhaqankee yaa hubin kara in waxa socdaahi ay yihiin kuwii saxda ahaa waxaa hubin kara waxa aan soo xulay hadda ka hor odayaal ma aha ee dhallinyaraa ku jirtay marka taasaa hubin karta dhallinyara xataa iyo odayaal inta uu isugu jira weliba dhallinyara u dhamay marka taasaa hubin karta haddii laydinka tagay ahaan lahayd laakiin qayba adinka ka mid ah haddii la xusay waa saxan tahay la tahay qofkuna markuu qaldamayo dhallinyaro iyo oday ma kala leh asalaamu calaykum xabi su-aal bal kalaa kuu taalla adigana kale ku xusan tahay aada u mahadsan yahay ibraahim oo su-aal weydiiyey maraadaysan dhallinyarada digli bilefe ama koonfur galbeed ee deegaanada ku soo galmudug dhallinyarada way nagu dhex jiraan hawl walba aan qabanayno iyo activity walba oo qabanayo dhallinyarada way ka qayb qaataan waxaan isleeyahay runtii dad waxay noo yihiin madax ay noo yihiin ururada dhallinyarada bulshada ka jira deegaanada galmudug qaarkood inta aanu ka warqabo marka qof dhallinyaro ah oo deegaanku walnool oo u jeedid dadaalkiisa iyo xirfadiisa iyo aqoontiisa anagu intaas ayaa dhallinyar ahaan ka faa'iidaysanaa waana ka faa'iidaysanaa laakiin mansab siyaasadeed iyo jagooyin iyo dowladda wax laga raadiyo anaga decision making ismailin aqoonkaas aan ugelin laakiin dhallinyarada haddii ay wax kastoo activity ay qaban oo laga dhalaa si siyaasadda uga mid noqdaan ma ku jirtaan qorshayaal oo ma la ololeynaysaan decision making anagu malin dhallinyaro haddii aan isleeyahay ugaaskaan looga jawaabay wixii siyaasad raadinaya in miis maanta ay soo garaacaan si ay uga qayb qaataan waayahay muna haye su-aal baa kuu taalla adigana waxay ahayd haddaan ku xasuusiyo ninka ustaad axmed baa ku weydiiyey haweenku markay siyaasadda soo galaan mararka qaar waxaa la maleeyaa ama muuqataba inay iloobaan xataa dumarnimadoodii oo marxalado kale ay ku mashquulaan marka taas miyaynan saameynaynin ama daano ku noqonaynin
in haweenka mar labaad lagu aamino inay siyaasadda kasii mid noqdaan ومعسين مرتو كائن شخص فردناهي بمصري ضد ابن آدم كان واصلاس هواي كان ضد كيف يجي وكجرا قبل وحقتي وصانع لأود ذا المرة إن هم تطهير فضلال أما هي معمر قبلت أو دقائق سنوية مثلا أنا وصل قاطع كلتان وهذا من دقائق يقول شهيري دقيقة كان عن قصنا marka gabdhaha aqal kalena waa laga helayaa kuwa kaleeto iska hurdana waa laga helayaa marka laakiin way dadaalaan boqolkiiba boqol waayahay su-aal baanalka oo dhan la soo weydiiyey yaan rabaa ninkaas inaan siiyo nin dhallinyaraa baa weydiiyey oo yidhi siyaasiyiinta iyo dadka kale ee xilalkan ku hardamaya waxba nooma ogola marka annagu si aan uga qayb qaadanno maxaa qorshayaal ah oo nooga degsan maadaama aduu dadka hadda bannaanka ka joogay raba inaad ka mid noqdaa tahay su-aashaas adigaan ku siinaya بسم الله waxaan dareemayaa talliinkiisa waa qoweyn oo ku soo celceliyay inta leh go'aanada arrintan le waa way caddahay annaga dadka bannaanka jooga dhalinyaro ahaan iyo cid walba wax kaliya u furan inay dadaalaan hadda meel aalaji lagu qabanaayo iyo meel maaragtay dadkii sida saxda loogu kala saarayo meel lagu tartansiinaya waxaan malaynaa si galmudug hadda ka jiro galmudug cusub ayaa la dhisayaa la yidhi macnaheedu waxa waaye galmudugtii hore way shaqaysa waxna waa ka qaldan yihiin taas darteed midaan qaldaminaan dhisaynaa sidaasaa waxay yidhahdeen dowladda iyo odayaal dhaqameedka iyo marka waxay ila tahay inaan anagu joogno oo niraahno waa joognaa reer galmudugaan nahay posiishinada jiraan buuxin karnaa dhallinyaraan leenahay haweenaan leenahay waxaan leenahay dad wax bedeli kara inaan niraahno moogiye doolka hadda wax bedelka ama wax cusub keenida iyo shaqaalaysiinta maanta anaga malihin reer galmudug uma dhamma macnaha intaas waxaa la siiyey dad gaara oda dhaqameedyadaa la siiyey kolley kormeedkeedan waxaa lahaan doona dowladda federaalka soomaaliya saas darteed annaga waxaan qabnaa maanta kaliya inaan muujino inaan nahay dad diyaar u ah wadankoodii in dib loo dhiso ka qayb qaataan si positiifa soo dhaweeyaan wax walba oo dadaala oo jira maaragtay rajo wanaagsanna muujiya maantii timaado doorasho nooc kale lagu imaan karo dadka nooc kale lagu tartansiin karo in maaragtay maanta ay soo istaagaan intii ka horeysa ay aqoontooda iyo dadaalkooda lama laabaan sidaasaan u qabaa waayahay aad baad u mahadsan tahay dhammaantiinna waa idiin mahad celinayaa mar kale kasoo qaybgalkeena barnaamijkan iyo sida quruxda badan ee aragtida aanu isku dhaafsanayno gabangabaan ku dhownahay waa soo gabangabaysan doonaa waqti dhow ugaaskan siin doonaa su-aalaheena barnaamijkana way ku jirtaa kolley xaggana way ka imaanaysay waxaa hadda laga shaqaynaya galmudug ka dhex jira inagoon wada daboolaynin ma rabno inaan daaha ka wada qaadno laakiin haddana inagoon wada daboolaynin ma saxba ama ma la wada aamini karaa inaan gacmo ka baxsan galmudug aanay maamulaynin tusaale ahaan faragelinaa laga cawdaa oo faragelin baa jirta faragelintaas ma sida loo sheegaya sax u tahay mise ma jirto intaana ka jawaabin waa mid ka bandhaanka ahaa dowladda federaalka iyo soomaalida mise waa mid ku dhex jirta waa mid ku dhex jirta isma lihi anugu hadda sideeda waxaa dandiga la yidhaahdaa waa khatarteeday leedahay shay kastana waxaa laga jawaabaa marka ay kuu timaado waxaan isleeyahay sida lagu dhawaaqay oo madaxda dowladdu ay ku dhawaaqday oo ra-iisul wasaaruhu labada bilood ugu fadhiyey oo haddii ilaahay ku reey madaxweynuhu uu soo xiray shirkii dib u heshiisiinta waxay ahaayeen faragelin la-aan dowlad galmudug la yidhaahdo oon khilaaf lahayn oo federaalka ku xiran oo ayadu isku xiran oo dadkeedu ku xiran in la dhiso ayay ahayd sidaas loo sheegay baan anagu u qaadanaynaa haddii alla waa mahadsan tahay doctor caabi yaan markaan isagana su-aalihiisa weydiin doonaa doctor wax badan baan ka sheekaynay kolley xog badan aanan ka haysa arrimaha dhallinyarada iyo kolley abaabulkan siyaasaddan iyo waxaan la xiriira mar horena waa sheegnay oo dhallinyarada maamulada jira waqtigan door fiican bay ku leeyihiin oo kasoo qayb qaateen maanta inagoo ka qiyaas qaadanayna waxaa hadda jira ma kuu muuqataa inay tahay waqtigii dhallinyaradu ay boos muuqda ama kaalin muuqda ay ku yeelan lahaayeen galmudug aad u mahadsan tahay
sidaan hore u sheegaba maanta iftiinka yarka galmudug ka muuqda oo halkan maanta soo gaarsiiyay dhalinyaro ay ahayd isha wixii soo gaarsiiyay oo hore oo sheegay oo wasaaradaha maanta shaqeynaayo xarumaha leh agaasibayaashooda waa dhalinyaro weey guddiga shaqaalaha maanta iyo dhalinyarada badan oo ka tirsan shaqaalaha rayidka sidoo kale ayakana oo wasaaradii technical u shaqeeyaan ama farsamahan u shaqeeyaan ayakana waa dhalinyaro marka waxaan isleeyahay maanta inay fursad kale helaan oo ay ka qayb qaataan runta ayadana waxay ku xiran tahay isleeyahay sayaxyaasha iyo dhaqanka Soomaalidu waxay tiraahdaa digsi ninka u dhawaa ba digsi dab saaran ninka u dhawaa lafta kala baxa marka dhalinyaradu inay u dhawaadaan galaanka siyaasadda iyo dadka go'aanada gaaraya sidii maanta oo dhan bakoorada usha lagu hayo ugaaska ama saxiixa ayaa ugu dambeyn waxa arkaysaa asagoo meesha hoos ka bixiyo qof kale ku qoray marka si ay soo dhicin taas in aad loogu dhawaado dhaqanka waxa isleeyahay maanta waxay gelin badan haystaan laftigooda way u jeedaan deegaan maamulada kale ee dariska ah ama Soomaaliya ka jira horumarada ay gaarayaan marka maanta waxa isleeyahay si ay taas uga dhabeeyaan oo qayb qaataan in maanta mar kale ay fursad dhalinyarada siiyaan ugaaska wuxuu sheegay in baarlamaanka ay ku jiraan laakiin waxa isleeyahay wax yar 89 waxa isleeyahay 20 madama dhalinyarada ku jirta ama 15 madama marka maanta in si fiican loogu badiyo si ay u noqdaan kuwa wax badan keeni kara oo kelmad wax ka bedeli kara waayahay aad baad maasan tahay muna dadaalada hadda socda ama ololaha loogu jiro doorashada haday xildhibaan ahaan lahayd iyo haday xilal kale ka sareey ahaan lahayd rag baa u badan hadayna waxa tiri dumarkayaan meel loo xirinay ha iska dhiciyaan rag oo hala tartamaan ololahii dumarka hadda way ku yar yihiin waxa u sababa horta waxa la wada og yahay dadka waxa moodana in aad looga gaabsanayo waxyaabaha hadda ka jira galmudug dawladdu waa sax way ku dhawaaqday in galmudug midaysan la dhisay laakiin sida saxda ah galmudug midaysan ee dadkeedu ku wada qanacsan ma dhismayso waayo dawladdu sida runta ah hadda xildhibaanada kala daan tusaale ka siiyo xildhibaanadii federaalka ayaa 100% soo farageliyay magaaladii ay yimaadeen waxay sameysteen inay guryo kireystaan in xildhibaanadiiba odayaashaba aan la weydiinba la yiraahdo annaga qoreena adagana wuu saxiixayaa de ugaasku haduu hore u ogeeyna way ku imaanaysaa warqadda markii loo keeno waan wada ognahay mana iga ahan aniga attack laakiin waa sida saxda ah runtii in laga leexdana ma aha gabdhuhu markaan gabdhaha waxa ay hadda oo doorkooda u yaryahay wax kale ma ah sida aan ku sheegay xildhibaanada federaalka oo magaalada yimid oo dadka xulanaya awgood gabdhaha albaabada lagu reebay marka intaas doorkoodu yareeyay waa iska jiraan gabdho anoo kale taa iska ordayo nasiibkooda tijaabi doona inay helaan in kaleeto laakiin waa waxa muuqda waa la wada ogyahay waana loo wada jeedaa marka caqabadaha aad sheegtay faragelinta ka yimid baa dumarkiina saameeyay ha waayahay waa ku soo laaban doonaa soo dhow mar kale sida munaba sheegtay faragelin baa laga cabanaya adinka qolihiina banaanka jooga ma faragelintaas baa ku tiirsantiin mase sidoo kale caqabad bay idinku tahay bismillaah waa faragelinta horta waxa weeye maaragtay san leeyahay inkastoo aan shaqa bilaaban sida ugaasku sheegay aan wax shaqaha aysan bilaaban waxaan u jeednaa dadka is-abaabulayo meela kiraysanaya waan u jeednaa ma hor dhici karno hadda ma dhihi karno way shaqadii qabteen oo afduubeen ma dhihi karno waay waxba lama qaban laakiin inay kaambayn yihiin inay odayga ku xiran yihiin inay weliba odayga saan anuu isleeyahay uu khasban yahay oo anigaa ku keenay haddii aadan sidaa yeelin waad baxaysaa ay taagan tahay waan u jeednaa waxaan u jeednaa hadda waxaan hore u sheegay inaysan dadka aqoonta leh iyo maanta halbeeg lagu cabiro inaysan lahayn maadaama araajo aan la qabanayn odaguna ninka u dhow markaasi ama u hadal dabacsan waxaa laga yaabaa aqoon ma leeyahay iyo ma laha inuusan u fiirin tanna waa angal kale oo xildhibaanadii iyo weliba sanataraa ku jiro ma ahan kaliya xildhibaanadii sanataradii ku jiro iyaguna angal kale weeye oo laga yaabo in odayaasha pressure ku yihiin dhinacna sida wararku nagu soo gaarayaan dawladayba pressure ku yihiinba waayahay aad baad u mahadsan tahay ugaaskan sii rabaa maadaama su'aalahaas ay hadda nagu soo kordheen inagoo markii horena waanu sheegno anagoo ku celinayna mar kale inagoon ka leexleexanaynin xaqiiqaad ka jira
faragelintan laga cabanayo kolley mid fog maaha waa xildhibaanay maraysaa oo kala abaabulaya sida doorashada u ekaan lahayd ma weliyaysan ku soo gaarin mise si kale wuxuu jiraan bismillaah horta marka hore waa doorasho dhan campaign waa campaign mana rabo inaan lawyer noqdo oo aan cid difaaco ma rabo marka waxa la salaadiba say ku qabataa loo tukadaa baa la yiraahdaa taasi markay timaado jawaabteeda la bixinayaa cirib waxa la yiri qorax soo baxday sacab laguma dado hanoo timaado waxa laga tuunsan laga cabsanayo markaas aad noo qabanaysaa doodaan oo kale oo la cadeyn karayo laakiin hadda waxba ma cadda wax la bilaabanayo ma jiraan waayahay aad baad mahadsantahay ogaas dadkan siinayna markii ugu dambeysay oo ku soo xiri doonaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام مقعيق واويس عبد أبشر وحان ربا أوغاسكينا ويديو سدح سؤال شو قوه الرئيسة إن إقرأ لهذا دي سؤالي قبطان انت كقارتين كجوابتان جعلالا تنقوه الرئيسة وحي تهي وحان مقلنا هذه جار إن سيدهات أستاذ بان كمقليني حلبان هذا إن فدرالكا إي مادين قريب بدن كريستين إي جوغان إن حلبان هذه قلم ذكومة تيلها إي ليس وجران كلي لوجا بهاي هاي إن سلادين تإني صحيحان وحيابها صح كميدا أذيك وجاسها ولي مكو قبصدين سؤال اللي بعدها روحي تهاي إن مركي لديسايو ضل إن لديساربو أما معمول وحاجة سلف ديتامينت وحليرة أما ضدك إني جاران جو أمدود وحان أرجنا جو أمدي إلى مدة إن أذيك جاريسين ضد كان نلمتك inay gaaraan ay xaq u leeyihiin wadanka waxa ka jirta dimuqraasi waxa lagu yaqaanaa participant inay jirto dadka ka qayb qaataan wali ma aanan helin doorka naga ka qayb qaadashada waayo adinka ayaa ah hadeertaan goorma ayaan ka gudbaynaa nidaamka ah inaad adinkana matashaan waayo waxaan xaq u leenahay inaan go'aamadana gaarno anagu tan saddexaad ayaan raba waxay tahay inaan ku weydiiyo dadka xildhibaanada aad u soo saartaan ee aad go'aan inta ka gaartaan aad dhahdaan xildhibaanaan ku dirnay shuruudaha aad ku doorataan maxay tahay hadda waxaan joognaa waqtigii in xildhibaanada la soo xul lahaa adiga shakhsi ahaan ma jirtaa shuruudo aad ugu tala gashay qofka xildhibaanka aad ka dhigi lahayd waayo dad badan oo xildhibaana ayaa jira maxaad ku kala reebay haddaan si kale u dhaho waa mahadsantahay bismillaah madaxda sharafta mudanayaasha sharafta marka hore waan salaamayaa waxaan rabaa laba commenti oo tacliiq yar inaan ku darsado oo meesha laga dhawaajiyay midda koobaad xildhibaan muno arin yar ay ka dhawaajiso ah qoontaynta dumarka kama jirta Soomaaliya kaliya ee meelo badan ay ka jirtaa waxaana sababa mujtamaca aan ku dhex noolnahay ayaa dhukuuri ah waa mujtamac rag ah gaar ahaan anigu East African ka warhayaa Uganda iyo Kenya duruufa sababtay in wax loo qoondayo dumarka maxaa yeelay bulshadii kama imaanayaan bulshadu waa mujtamac dhukuuriya midaan qoontada dumarka boqolkiiba 30 mid lamida oo noocaas oo kale ayaa Uganda ka jirta oo ah deegaano mucaayana inay u tartamaan dumarka waayo waxa la ogaaday hadii lagu sii dhaxdaayo ragga inaysan ka soo bixin sidaas darteed xaafadda horseedoo kale waxa ka tartamaya dumar kaliya ayaa la yiraahdaa si ay xaq iyo xuquuqdii ay u lahaayeen ay u helaan marka taasa keentay in qoondadaasi la keeno midda labaad oo meesha laga dhawaajiyay waxa laga dhawaajiyay galmudugta cusub dad badan ayaa malaha waxay iska hakaraan in dadkii hore aysan ka mid noqon karin galmudugta cusub waayo ayagu waxay soo arkayaan kuwa aan cusboonayn inaysan ahayn waxaan u malaynayaa arinku sidaa ma ahan galmudugta cusub waa constitutionka maamulka qaabkii hore wuxuu socdeen in la bedelo si aysan dadka qaarkood u arkin galmudugta cusub inaysan ka mid noqon oo ayagu lagu shabadeeyo kuwii hore midda saddexaad aan ku darsanahay oo ku soo gabagabeynaya waxay tahay duruufahan haysta waxay tahay bulshadeena waxba ma qorto shala dhibaatooyin baan soo wada marnay duruufihii waa la ogaay cid walba goob joog bay u ahayd xildhibaanadii oda dhaqameedyadii maamulkii shareholderadii stakeholderskii dadka ahay wixiina soo faragelinayay wax walbo jiray dhibaatooyinkii waa loo soo joogay laakiin lama diiwaan gelin xildhibaanada problemya ka yimid lama diiwaan gelin stakeholderskii dawladda ha ahaato shareholderadii dadkii dhisay galmudugtii hore xibin iyo xeeb ahlu sunna wal jamaa oda dhaqameedyadii ogaasyadii dhibaatooyinkii ka dhaxdhacay problemyadii ay keeneen lama diiwaan gelin
madaxaa la soo doortay qaab baa lagu soo doortay dhibaataa ka timid madax cusubaa la dooran doonaa dhibaataa ka imaan doonta lama odorsin tusaale ninka madaxweynaha ka noqonaya kriteeriya noocee lagu soo dooranaya muxuu noqonaya aqoon noocee buu yeelanaya muxuu ahay hadafkiisa muxuu hiigsanaya shacabka dad baa ka dhex guuxaya dowladdu stakeholderska ayay ka mid noqon doontaa وفعلا dad bay keensan doontaa waxa la yiri gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaa laakiin saas ay tahay isma mooga dadka meesha jooga way og yihiin in dawladda hadda jirta ay doorasho gali doonto sanad kadib sida dawladdii hore 2015 markay maamulka dhisaysay ay sanad kadib doorasho galaysay kamana duwanaa doonto shalay wixii dhacay maanta inay dhacaan sidee looga hortagaya dadku say ku heli karaan maamul ay ayagu eedaan ay ayagu yihiin kuwa soo doortay ilaa hadda hadaanan isweydiin isbuucan gudihiisana ay suuragal tahay ama kan soo socda guddi doorasho lagu dhawaaqo 11 xubnood oo guddiga doorashada la soo xulana ay hal meel noqdaan markaan saas leeyahay waxba door xuli maayee wada dawladaba ay ka wada yimaadaan ururadii bulshada rayidka aysan waxba ku yeelan mucaaradka aysan waxba ku yeelan ahlu sunna wal jamaa in la qanciyo aysan waxba ku yeelan dawladda aysan waxba ku yeelan maxaa yeelay dad badan hadda waxaysan ku baraarugsanayn awoodda ay leeyihiin guddiga doorashada awoodda ay leeyihiin waa dadka tarjiixi doona baarlamaanka waayo odayada waxay isku qabsan doonaan inta aanan ugaaska iyo dadka lamid oo saxiixayaasha loo soo gudbin waxa problem ka imaan doona la isku qabsan doona xildhibaanada la soo xulay haddii uu dhinac u dheeliyo guddigii doorashadu xildhibaanada la soo xulo dayama yeelo doonaan sidaas si lamada madaxweynuhuna dayama yeelo doona waana mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Faarax Cabdulla Xasan waxaan u maleynayaa waa markii saddexaad ama labaad oo dood halkan ka dhacaysan ka qayb galayo laakiin waa markii koowaad oo macnaha aan su'aal weydiinayo dadka marka fursadaas aad siisan waa ku mahadsantihiin si guud marka waxaa moodaa in mowduucu yahay inkastoo aan ka soo daahay xafladda furitaankeedii inay tahay macnaha waxa la filaayo macnaha dib u heshiisiintii kadib macnaha dhacday iyadoo taas la leeyahay marka dib u heshiisiintii gogosheeda waa soo xirmatay isla markaasna stagekii labaad looma gudbinba oo lama soo magacaabin xubnihii mataqaanaa guddiga doorashooyinka lama soo magacaabin su-aashaan cabaarayaa su-aasha koowaad waxay tahay muna hadaayata waxay sheegtay waxaa la isku soo qaadatay qoondada haweenka maray ka hadlaysay iyo faragelinta mataqaanaa dawladda faragelinayso markaa qoondada macnaha haweenka bay ku soo qaadatay sidee bay iskula xiriirisay macnaha ayadoo aan ognahay dawladdu inay priority siiso haweenka oo wasiirro ay yihiin xildhibaanada wax walba ay yihiin qoondadii oo ay saluug ka qabto ee dawladda federaalka faragelinteeda sidee bay isku xiriirtay annagoo aan u dareemi karna inay dawladdu u duroon tahay ishay haweenka taas waa pointiga labaad waxa waaye waxaan arkaynaa ilaa odayaal dhaqameedku ay wax fara badan matalayeen ilaa haddana siyaasadda ay hortaagan yihiin guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Galmudug ogaaska waxaan weydiin lahaa adinku goorma dad ka hor wareegaysaan oo dadkan siyaasadda u dhuundaloola oo siyaasiyiinta aad u daynaysaan ha ismaamulaan iyo dhalinyarada fikirtooda adinku goormaad gaboobaysaan macnaha ka fariisanaysaan waa maasanta intaas ku soo koobaya waayahay ninkaasi su'aasha toos u gal noona soo koob bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamaya ugaaska iyo madaxda kale meesha fadhida waxaan moodaa su'aalaha intooda badnaa in maartay la soo weydiiyay la ku soo daalay anigu ma badinaayo su'aal horta aan qabay hore looga soo hadlay oo waxa ugaaskan weydiin lahaa kriteeriyada aad ku xulanaysaan xildhibaanka codkeeda ka raadsanaya oo idin imaanaya sababta aad ku xulanaysaan aad ka fiirinaysaan ninkan maqurba joogba intee shahaado maartay jaamacadeed buu wataa
haddii la ku samee ogolaya xagee buu ka yimid manin dalka xoogaal waa suruura horta aad qofkan ku xulanaysaan waa rabnaa in koogaas ahaan maadaama awood aad leedihiin aad maaragtay qofkan wax ku siin kartaan inaad maaragtay noo cadaysid waa rabnaa qodobka labaad aan rabo inaan weydiiyo ogaaska waxa waaye qodobka labaad aan weydiinayo maxaa looga hortagi karaa xildhibaanku inuu lacag ku soo baxo tusaale ahaan aniga xildhibaankii 4 sano la soo dhaafay galmudug ugu metelay maalinkii la doortay baa u dambeysay meelahaas iska aaday haddana wuxuu yiri asagoo boorso lacag wato xilkii doonay markii aan weydiinayna wuxuu yiri lacagteeda rabaa inaan ku soo baxo dhalinyaro badan waxay ognahay xilkii u baahan laakiin financial problem buu jiro aan lacag ay ku soo baxan haysan marka taas si looga hortagi karaa oo maaragtay in qofkan uu lacag ku soo bixin laakiin aqoon iyo karti uu ku soo baxo taas sida lagu saleyn karaa hal mid oo dardaaran raaci lahaa oo ah dhalinyarada aqoonta leh oo maaragtay galmudug ku sugan in aysan wax socdo marti ka noqon oo maaragtay aysan odayaashii kaliya ku halayn laakiin ayagu ay maaragtay wajahaan qaab maaragtay dood cilmiyeed iyo in afkaartooda muujiyaan taasna waa iga dardaaran waa mahadsantiin aad baad mahadsantahay su'aalaha intaas waan ku soo ekeenaynaa كل أوجاسك ويالا سؤالها وجبدا أساسي هذا قصة كوبية سؤال شنك أو كويدينا يا هاي محيط هاي وحيابها أو كحولنا إنسان حل بعنا ذا وحلي هاي عقبة المصابة وسلي نورتا حل بعنا ذا ورت وحنا وسياسة وحنا ودقن واحد دقن كاي وسيدان وشيء وضياش إيو nabadoonnada iyo sabdoonnada ku xiran yihiin laakiin waxa maxaa ku xulanaysaan siyaasadda dawladda iska leh ama midda federaalka ha ahaato ama midda maamul goboleedka ha ahaato waa jadwalkii u soo dejiso weeyo annaga naloo keeno saasaad ku soo xulanaysaan waa inuu baaj yahay waa inuu master yahay waa inuu alla ka cabsanayo waa inuu sanadii kitaabka yaqaan wixii naloo keeno oo naloo akhriya annagu akhrinaa marka waa siyaasadtaasi تندقنكانا وعن راني في عنو ديرو قروح بدنو إلهي كعب سنة يميهاي أيان رانا ما قبر يرو عند جدودنو أيضا إلهي كعب سنة سمتاي ساسا نكح الله ما أنا أنو أقونت سياسة الدولة دا إسكالي وحيا هاي مدي كالي كورمان دقور وريغيسان حتى بالديار بانا هذا سو ديار قروجان ديار قروجين كحرن تاع اللي يردو أنو dhalinyaraan soo ahaan jiray haddana odayaalaan noqonay booska waaba banaynaynaaye inaad nagala wareegtaan isku dayo horta talaydan lahayna talaynta yeeshaan odayaalow naga wareegana iraahda aadaan u dhaga fududnahay haddaan dhaga adkaynana hore noo hantaa tureeyo saasaan leeyahay maxaa kaloo haray waxaan u maleynayaa su'aalaha inaad laba isku raacisay waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan kusoo gabagabay laba su'aal oo ninka gadaal fadhiya uu soo jeediyey marka waa ku dambaysiin doonaa tutorkan siinayaa waxa uu dib noo xasuusiyay arrimihii galmudug markii la sameynayay 2015kii caqabadihii jiray iyo wixii dhacay su'aal ay ahayd inaan kusoo gabagabaynay ahayd marka iyada baan kusoo gabagabaynaynaa wixii xilliga dhacay waxaan xasuusanaa doorasho dawladdu u diyaar garoobaysay maanta waqtigeeda la taagan yahay sidee kula tahay in looga badbaadi karo wixii dhacay waqtigaas galmudugta maanta la sameynayo waxaan isleeyahay horta mid lagama badbaadayo oo waqtiga lagama badbaadayo galmudug la dhisayay oo wali xilligii doorashada markasta la qabanayay qaranka ayay ku soo aadaysaa laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha kale oo technicalka u baahan ama dadka galmudug matala inay yimaadaan u baahan waa laga badbaadi karaa tusaale khilaafka haddii aan la isweydiin maxaa keenay iyo maxaa laga dhaxlay iyo sidee loo gudbi karaa dee weli meesha la taagnaanaa si uu sheegay walaalkay waxyaalaha galmudug khilaafkeeda keenay ko waxaa ka mid ah xildhibaanadii la soo doortay oo galmudug xilligaas waqti hore matalay waxay ahaayeen isleeyahay inta u badan may sahlin aqoontii ku filnayd iyo xirfad iyo hal abuurkii may salayn taas waxay keentay marka in xuquuqdooda ay waayaan waxaan isleeyahay 4 sano oo xildhibaanadii galmudug jiray ay joogeen mushaar ay leeyihiin ay qaateen ma jirin sababtoo ah waxaan isleeyahay waxa keeni waayeen waxay tahay meelay ka raadsadaan mabagaysa garanayba marka taas waxay keentay in qofkii wax qarash haysta ama siyaasigii uu ka faa'iideysto oo maalinba meesha ay ka shidan tahay ay tagaan oo khilaafka ay sii horiyaan marka waxaan isleeyahay haddii xildhibaanadaas maanta intii wax laga bedelo la keeno dad xirfad leh yaqaana waxyaalaha loo idmaday
aqoon laga badbaadi doono khilaafka keena waayahay muna siino isla su'aashaas laakiin waxaan ka hormarinayaa su'aal ninka ku weydiiyo ahayd maadaama dawladdu iyadu ay dumarka aad siyaasadda qoonda uga siiso maxaa ka dhaxeeya xildhibaanadan dawladda ka socda iyo qoondada leedinka hortaagan yahay horta haddii ay leeyihiin haweenku qondo u gooni ah maba qaaliyaanba meelba inta tagaana waxooda qaataan iska bixi lahaayeen yar kalena wuxuu ka dhawaajiyay Uganda iyo Kenya iyaan ka imaado waxaan soo arkay haween wax doorta inta kama jirto horta haween la yiraahdo is doorta waxaan ayaga leh ma ka jirto waa un inay orado ay raadiso ani marka hadda talahay qoondada boqolkiiba 30ka ama kuraasta la xiraayo kala gabdhaha waa lagu mashquulinayaa si daacad loo mehergelinayo waayahay isla su'aashan marka wadadii la soo maray 2015 markii galmudug la dhisay sidee kula tahay in looga badbaadi karo waxaa looga badbaadi karaa horta in la helo dadka reer galmudug inay rabaan horta dawladnimo inay u taagan yihiin in wax la dhisto in ay waxa indhaha dad ka fiirsato wix lagu keenina aad qaadato oo aqbasho waa ku qasbantaa laakiin waa in la helaa horta dad ka dhaadhacsan tahay dawladnimada ama waxa loo baahan yahay waayahay isla su'aashaas bismillaah anu ma qabo wax badan laga badbaadi karo 15 ninka xulaya hadda sida hadda ugaasku noo sheegay waa dheer yahay waa qorxoon yahay waa ayaa lagu xulanayaa waxaan aaminsanahay marka xulista la yiraahdo iyo dadka mathalaya inaan laga badbaadi karin maadaama 2015 dadkii wax xulayay ay hadda xulayaan aanan la keenin waxyaabo ka bedelan oo lagu soo xulanayo qofka laakiin hal arin way dhici kartaa markii shaqada la galo in xildhibaanka shaqada ku jira uusan yiraahdo alla ilaahay wixii 4 sano dhaco kale ha u noqon iyo sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha dhalinyaradu ustaadku in xaqoodii la siiyo haddii xaqooda la siiyana ay u shaqeeyaan si aan isdaba marin lahayn waayahay aad baad mahadsantahay ogaaskan siinaya si uu noogu soo gabagabeeyay isla su'aashaas jawaabteeda goobjoog baad u ahayd markii galmudug la siimaynay 2015 wixii dhacana xogogaal baad u ahayd lagaaga sheekeynayo maanta dhismaha socda si aanu ugu ekaanin tii 2015 maxaa la samayn karaa bismillaah horta waxaan isleeyahay waxbaa la soo qabtay sidii la rabay baysan wax u yirgelin waxbaa la soo qabtay waxaana haddii lagu sii daro inta way ka soo qurxanaanayaan waxaan isleeyahay madaxweynuhu federaalka waa nin galmuduga ra'iisul wasaaruhu waa nin galmuduga haddii ilaahay ku roon yahay gudoomiyaha baarlamaanku waa nin galmuduga gudoomiyaha madaxweyne ku-xigeenku waa nin galmuduga waxay la tahay waxay ku cibro qaataan way soo mareen marka waxa la yiraahdaa meelaha shalay ku kuftay maanta laguma kufo maxaa yeelay ilaa dhagaxii shalay lugta ka galay waa taqaan waxay la tahay aqligoodu waa dad fakar badan meeshay shalay ku kufayn ee ayagu fakarkooda inta mideeyaan inay dawlad fiican oo galmuduga oo tabar gasha ay dhistaan ayaan malaynayaa madaxduna diyaar bay u la tahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu diyaar bay u leeyihiin ilaa meesha ugu dambeysay inay galmudug gaarsiiyaan waana sheegeen waxay qariyaan maaha marka saasay aan isleeyahay galmudug cusub saas u dhismaysaa wayna ballan qaadeen aad baad u mahadsantahay waa idin mahad celinayaa dhammaantiin martida barnaamijka sida gaarka noogu martida ahayd ee panelka noo joogtay ugaas Bashiir ugaas Ereg Titor Mahad Caabi Ciise oo dhalinyarada iyo sidoo kale arrimaha siyaasadana aad uga warhayay xildhibaan Muna iyo Nuur Maxamuud Jaamac dhammaantiin waa idin mahad celinayaa ka soo qaybgalka barnaamijkan aad nagala soo qayb gasheen dhalinyarada quruxda badan ee su'aalaha aadka muhiimka u ahaa barnaamijka ku soo diray aragtiyada adinkana waa idin mahad celinaya barnaamijkeena ayaan jeclaa inaan intaas ku soo gabagabeeyo waxa ku saabsanaa dib u dhiska dawlad goboleedka galmudug kadib ka soo kabashada waqtigii khilaafka ahaa ee la soo maray waxaan rajaynayaa barnaamijyo kuwan la mid ah inaan isugu imaan doono tan iyo intaynu mar kale kulmayno waa mahadsantihiin